soo dhawaada qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan waa 15 Sebtembar sanadka 2025 qodobadaan idinkugu haya barnaamijkana waxaa kamid ah bayaan heer wasiir ah oo ka soo baxay shirka wadamada Carabta ee ka soconaya magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar kaas oo looga hadlayay duqeymihii Israa'iil iyo weerarka ay ku qaaday magaaladaasi iyadoo maalinta berriina la filayo in uu shir ka bilowdo magaaladaasi isla markaana ay ka qayb galaan madaxda wadamada Islaamka iyo Carabta haddaba bayaankan qodobada uu soo saaray isla markaana uu ka hadlaya maxaa kamid ah warbixin ayaan idinkaga hayaa barnaamijka arrintaasi ku saabsan isla wararkaasi haddii aan ku sii socdana waxaa soo baxaya Israa'iil goor dhaweyd inay soo gabagabaysay arrimo la xiriira la tashiyo ku saabsan la haystayaasheeda dagaalka bariga dhexe waxaana ay tilmaantay in la gaaray gungaar dhammaystiran oo ku saabsan sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadaasi loona gaari lahaa baa layidhi mowqif midaysan oo ku aadan xaaladda lagu dhammaystirayo dagaalka ka soconaya magaalada go'doonsan xilli Carabtu ay kulamo xasaasiya leeyihiin marka la fiiriyo weerarkii lagu qaaday magaalada Doha saameyn intee la eg ayuu ku yeeshay Israa'iil marka la fiiriyo diblomaasiyadda waxaa lagu soo warramayaa sumcad darro aad u weyn in ay la kulmeen marka la eego sida diblomaasiyiinta iyo falanqeeyaasha kala duwan ay wax u dhigayaan soo dhawaada qiyaarta nala socota ee wararkii ugu dambeeyay ee gobolka bariga dhexe ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan waxaan ahay Cabdicasiis Barrow waxaa soo baxay bayaan golaha wasiirada ee jaamacadda Carabta iyo dunida Islaamku ay ka soo saareen shirka ka soconaya magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar qoraalkan ayaa waxa uu ibafur u noqon doonaa shirka maalinta berri ay ku yeelan doonaan magaaladaasi madaxda dunida Islaamka isla markaana ay uga hadli doonaan weerarada Israa'iil ay ku qaaday gobolka bariga dhexe iyo sida arrintaasi loo saameyn doono gaar ahaan weerarkii lagu qaaday magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar shirka Carabta ah iyo Islaamka ee ka dhacaya magaalada Doha kuna saabsanaa weerarka Israa'iil ay ku qaaday Qatar ayaa soo saaray qoraal bayaan ah oo si adag u cambaareynaya waxaa lagu tilmaamay gardarrada Israa'iil iyo hanjabaadaha ay ku celcelinayso ee ku wajahan Qatar iyo dalalka kale ee Carbeed iyo kuwa muslimiinta ah ee ka qayb galaya bayaanka weerarka waxa uu ku tilmaamay tacaddi sharci darro ah oo fulaynimo ah iyo xadgudub cad oo ka dhana baa layidhi madax banaaninta dal madax bannaan oo lagu soo xadgudbay bayaanka ayaa hoosta ka xariiqay isku day lagu fashilinayo dadaalada nabadeed iyo dhexdhexaadinta ay Qatar hogaaminayso sida lagu sheegay bayaanka wasiiradu ay soo saareen shirmadaxeedku waxa uu ku nuuxsaday weerarka Doha inuu yahay ku tumasho ba'an oo ka dhana dhammaan dalalka Carabta iyo Islaamka maadaama Qatar ay xubin ka tahay qaramada midoobay iyo guud ahaan xubnahan hadda ku shiraya magaalada Doha falalka Israa'iil ay ku kacday oo ay ku jiraan baa layidhi barakicin dhibaateyn qasab ah iyo go'doomin iyo weliba ballaarinta gumaysiga dhulka ayaa si weyn u wiiqaya rajada nabadda iyo xiriirada caadiga ah ee dalalka Carbeed ay la yeelan lahaayeen Tel Aviv sidaa daraaddeed waxay wadamadan muujinayaan inay ka fiirsanayaan heshiiska diblomaasiyadda ee nidaamkaasi la yeelanayaan Israa'iil waxaa lagu yidhi in dusha laga saaray mas'uuliyadda buuxda ee cawaaqib kasta oo ka dhasha duulaanka iyadoo lagu wargeliyay inay Qatar ay xaq u leedahay in ay qaado dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka si ay u ilaaliso amnigeeda iyo madax bannaanideeda sida ka muuqanaysa war-saxaafadeedkan shirka ayaa sidoo kale waxaa ka soo baxay oo lagu ammaanay xakamaynta xigmadda iyo mabaadi'da sharciyadeed oo ay ku dhaqaaqday Qatar ee ku wajahan weerarka waxaa lagu celiyay taageerada buuxda ee dadaalada Carabta gaar ahaan Qatar iyo Masar iyo Mareykanku ay ka wadaan si loo gaaro xabad joojinta magaalada go'doonsan iyo sii deynta maxaabiista waxaa la xusay kaalinta weyn ee Qatar ee gargaarka bini'aadanimada waxbarashada iyo horumarinta nabadda caalamka ay ku leedahay ugu dambeyn shirka waxa uu si cad u sheegay in weerarka Israa'iil uu ku yahay kor u qaadis khatar ah oo muujinaysa wejiga gardarrada ah ee xukuumadda Netanyahu isla markaana uu halis weyn ku yahay baa layidhi nabadda gobolka iyo guud ahaanba tan caalamka sida ka muuqanaysa war-saxaafadeedkan dhinaca kale warbaahinta Israa'iil ayaa caawa tabisay marka la fiiriyo
xaaladda hadda ka taagan dagaalada gobolka bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsan iyo qorshaha Israa'iil in la dhammaystiray wadatashiyo ku saabsan sii deynta maxaabiista ee weerarkaasi lagu qabsaday dagaalka ka soconaya magaalada. warbaahinta Israa'iil ayaa maanta ku warantay in ra'iisul wasaare Netanyahu uu soo gabagabeeyay wadatashiyo socday 3 saacadood oo ku saabsan xaaladda maxaabiista la haysto ka hor inta aan la bilaabin howlgal ballaaran oo lagu galayo guud ahaanba magaalada go'doonsan. wararka ayaa sheegaya in Netanyahu uu kula tashtay saraakiisha ammaanka iyo ciidanka fursadaha jira gaar ahaan haddii maxaabiista ay halis ugu jiraan in la dilo inta lagu guda jiro duulaanka. dhinaca kale magaalada go'doonsan ayaa weli la daalaa-dhacaysa barakac baahsan iyo duqeymo joogto ah. kumanaan qof ayaa ka qaxaya wadada Rashiid halkaasi oo ay ka muuqato daal, dhaawacyo iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata. wasaaradda caafimaadka ee magaaladaasi ayaa xaqiijisay dhimashada dad badan oo kor u dhaafaya 100 ruux iyo nafaqadarro qaarkood u geeriyooday. dadka u geeriyooday nafaqadarrada ayaa lagu tilmaamay inay hadda gaarayaan 422 qof oo ay ku jiraan 145 carruura. arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli xaaladda gobolka bariga dhexe ay ka sii darayso marka la fiiriyo go'aanada isdaba joogga ah oo ay qaadanayaan wadamada Carabta. marka la fiiriyo sumcad-darrada diblomaasiyadeed ee ka soo gaartay Israa'iil weerarkii ay ku qaaday magaalada Dooxa ayaa sii kordhaya iyadoo khubaradu ay ku tilmaamayaan in tani ay ahayd fashil aad u ballaaran halka qadarna ay sumcaddeeda kor u kacday. weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa 10 Sebtembar ayaa noqday dhacdo saameyn weyn ku leh oo ka baxsan baa layidhi Tel Aviv. weerarkaasi ay fulisay halkaasoo Israa'iil la sheegay inay beegsato hogaamiyaal ka tirsan kooxaha wax iska caabinta. inta badan hogaamiyaasha la tilmaamay waa ay badbaadeen halka uu dhintay askari amni oo ka tirsan dowladda Qatar iyo dad kale oo saraakiil hoose ah. tallaabadan ayaa jabisay xeerar siyaasadeed oo aan la qorin oo muddo dheer jiray kuwaasi oo Dooxa ay ka dhigtay meel ammaana oo ka baxsan goobaha dagaalka. hadda weerarka waxa uu dhaliyay cambaareyn caalami ah iyadoo beesha caalamku ay u aragtay xadgudub weyn oo lagu sameeyay madax banaanida waddankaasi Carbeed ee Qatar. dowladda Dooxa ayaa ku goodisay jawaabteeda inay noqon doonto mid siyaasadeed iyo mid sharci ah iyadoo la filayo inay albaabada ka xiraan Israa'iil yareeyaanna kaalinta dhexdhexaadinta islamarkaana tallaabooyinka ay ka qaadaan madaxda Israa'iil maxkamadaha caalamiga ah ay aad u sii kordhi karayso. gudaha Israa'iil ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa isku dayaya in weerarka uu ku iibiyo guul siyaasadeed balse khubarada badan ayaa ku doodaya inuu sababi karo dhaawac la xiriira dalalka qaliijka iyo shaki weyn oo la muujinayo kalsoonida xulufada gobolka. ugu dambeyntii falanqeeyaasha ayaa ku tilmaamaya weerarka guul taariikhi leh oo khasaare istiraatiiji ah oo aad u weyn labada dhinac u leh maadaama Israa'iil ay galayso xaalad siyaasadeed iyo sharci adag halka natiijada military aysan u geeni karin wax guula. dowladda Qatarna ay sameynayso kobac iyo horumar ballaaran. khiyaartana la socotay guud ahaanba tibintii iyo taxanihii caawa intaa ayaan ku gabagabaynayaa. barrow idile si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan halkan ku xirnaada aad baad u mahadsantihiin. ma ogtahay